waxaan leenahay xaafadaha hadda beeldaajiyaashu sheegeen oo laga qaxayo inaan magaalada qaximaan inaan xaafadaha laga qaxin inaan dadka la barakicin in nabadda iyo xasiloonida lagu dadaalo ciidamadu inay waxay dirayska u siteen dhammaantood wadadkan iyo maslaxadooda iyo amnigooda inay iyagu dhibaato iyo culays ku noqdaan maaha maamulkuna waxa loo dhistay waxa weeye inuu amniga iyo kala damaynta iyo nidaamka dowladnimo ee loo baahan yahay inuu wado waxaan rajaynaynaa insha Allah bidmillaahi kariim in cid waliba ay qaadato mas'uuliyaddeeda xadiiskii nabiga sida uu suldaanku sheegay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati mas'uuliyadda qof laga reebay ma jiro qof walba mas'uuliyad baa saaran qof kastaana inuu mas'uuliyadiisa ka soo baxo weeye haday tahay saxaafadda haday tahay ilaa madaxweyne ilaa iyo meesha u hooseysa qof laga reebay mas'uuliyadda ma jiro qof walba mas'uuliyadiisa ha qaato insha Allah bidmillaahi kariim wararka idaacadaha iyo saxaafadaha la isu marinayo aan waxba kordhinayn inay wax sii fogayaan maahe iyagana waxaan leeyahay laga taxadaro waxaan hadal aan macno weyn keenayn oo wax sii furfuraya oo dhibaato sii geynaya oo la isugu jawaabayo macno weyn keenimayo waxa fiican in danta iyo maslaxadda iyo wanaaga iyo sida khayrku ku jiro in laga wada shaqeeyo intaasaan idin soo jeedinaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay nabad boosaaso nabad weeye